kusoo dhawaada mar kale iyo xubintii taxanaha inoo ahayd ciyaaraha. Markani waxaan ku eegaynaa kooxda Manchester United, kooxda weyn ee kooxda Premier League magaca weyn ku leh ee Manchester United ee kooxda ciyaareedkan ku soo safray shaxda ah 4-3-3 ayadoo goalkeeper aha u wadato goalkeeper-heedii weynaa ee David De Gea. 29 jirka reer Spain David De Gea ayaa ku fadhiya lacag gaaraysa 40 milyan oo euro. Difaaca midig ee kooxda Manchester United waxaa noqoni doona 22 jirka reer England ee Aaron Wan-Bissaka kaasi oo ku fadhiya 32 milyan oo euro. Halka difaaca dhexe uu ku soo bilaabanayo 27 jirka reer England Harry Maguire kaasi oo qiimihiisa uu yahay 56 milyan oo euro. halka Harry Maguire uu qadka dhexe mataan kula noqon doono difaaca la rajeynayo inuu ku soo biiro xilli ciyaareedkani ee Moyet Upamecano 21 jirka reer France ciyaaryahankii hore ee RB Leipzig ayaa qiimihiisa macquulka u yahay 45 milyan oo euro. halka difaaca bidix uu noqoni doono 19 jirka reer England ee Brandon Williams ayaa qiimihiisa macquulka u yahay 11 milyan oo euro. markani iyo qadka dhexe bal aan u gudubna qadka dhexe waxaa ku soo bilaaban doona ciyaaryahanka cusub misna la rajeynayo inuu ku soo biiro mar dhow ciyaaryahankii hore ee Atletico Madrid 26 jirka reer Ghana Thomas Partey kaasi la rajeynaya inuu ku soo biiro kooxda Manchester United. halka qadka dhexe uu kaga wehelin doono 27 jirka reer France Paul Pogba kaasi oo qiimihiisa macquulka u yahay 80 milyan oo euro. halka qadka dhexe uu ku sii wehelinayo Bruno Fernandes kaasi oo xilli ciyaareedka hore ku soo biiray Manchester United. 26 jirka reer Portugal ayaa qiimihiisa uu ahaa 48 milyan oo euro. halka garabka midig uu kasoo kictami doono 20 jirka reer England Jadon Sancho kaasi oo qiimihiisa uu yahay 117 milyan oo euro. ciyaaryahanka ayaa la rajeynayaa inuu ku soo biiro kooxda Manchester United xilli ciyaareedkani. halka garabka bidix weerarka uu kasoo kictami doono 22 jirka reer England Marcus Rashford kaasi oo qiimihiisa macquulka u yahay 64 milyan oo euro. halka weerarka uu asna la rajeynayo inuu ku soo biiro 23 jirka reer France ee Moussa Dembele kaasi oo qiimihiisa uu yahay 40 milyan oo euro. ciyaartoy aanan weli ku soo biirin kooxda Manchester United balse la rajeynayo in ay ku soo biiraan xilli ciyaareedkan ay kala qayb qaataan Premier League kooxda Manchester United. xasuuso oo xiskaaga gali ciyaaryahanadii xilli ciyaareedka hore Manchester United u soo ciyaaray ayaa kaydka ku jira kuwaasi oo ayagana ay macquul tahay in ay ka soo qayb qaataan xilli ciyaareedkani. Manchester United ayaa la rajeynayaa in ay ku soo biiraan ciyaartoyda aad uga jeedaan line-up-ka walow inta badan kooxaha Premier League ay zaid isku dhiseen xilli ciyaareedkan.